هذا هو حال مسجدكم أسماء رسول الله يا أمة الإسلام. هذا هو حال مسجدكم. الله أكبر وأسلم. qudus waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka. waxaa lagu qiyaasaa in dhisan tahay ku dhowaad 5,000 oo sano. macnaha kelmadda qudus waa magaaladii barakaysnayd. waxaa lagu xusay kutubka Tawraadda 680 jeer. waxay martigelisay nebiyo badan oo ka mid yahay Nebi Daawud oo ka tirinay 40 sannadood. kadib waxaa xukunka la wareegay wiilkiisa Suleymaan calayhi salaam, isna gacanta ku hayay 30 sano. waxaa tegi jiray Nebi Ayuub oo waxaa ku yaala ceelkii la amray ee la yidhi waxna ka cab kuna meero. waxaa loo dheelmiyey Nebi Maxamed sanaddu markay ahayd 620 miilaadiga. qudus waxay soo martay gacmo kala duwan, awoodo iyo xoog kala duwan oo ku loolantameen. waxaa ka soo jiray boqortooyinkii Babilon, Bershiya iyo Romaaniya. waxaa ugu dambeeyey dowladihii Umayyadeed iyo Cabbaasiyiinta, waxayna saldhig u ahayd Islaamka iyo dhaqanka Carbeed. waxay dowladaha Kiristaanka ku xasuuqeen ku dhowaad 70,000 oo muslimiin ah, iyaga oo ka faa'iidaystay hurguftii soo kala dhex gashay dowladihii Islaamka. waxaa ka dhacay dagaalo taariikhi ah sida dagaalkii Xiddiin ee uu hogaaminayay halyeyga muslimka ahaa Salaaxudiin Ayyuubi. markuu Salaaxudiin dhintay, waxaa dib u qabsaday magaalada Kiristaanka iyaga oo haystay 11 sano. kadib waxaa gacanta muslimiinta ku soo celiyey Najmudiin Ayyuub sanaddu markay ahayd 1244. sidoo kale waxaa ka soo taliyey dowladda Cusmaaniyiinta iyadoo ay gacantooda ku jirtay ku dhowaad ilaa dagaalkii koowaad. dagaalkii koowaad markuu dhammaaday, waxaa gacanta ku dhigay Ingiriis, waxa uuna sida caadada ahayd ka sameeyey maamulo yaryar. xilligan waxaa ku soo badanayay qulqulka Yuhuudda si guud waddanka Filistiin, gaar ahaan magaalada Qudus, iyagoo caawimaad ka helayay Ingiriiska. waxaynu hadda fahamnay meesha ay laga soo galeen Yuhuud. reer Yuhuud maysan fadhiisan, waxa ay bilaabeen kacdoonno intii u dhaxaysay 1920 ilaa 1929. kacdoonnadaas dad badan baa kaga dhintay. waxaa damiyey kacdoonkii Ingiriis, wuxuuna dhul ahaan u siiyey qayb weyn oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka magaalada. waxayna ka dhisteen iskuulo waxbarasho iyo jaamacado. markii Ingiriisku ka baxay waddanka Filistiin sanadkii 1980, waxay Yuhuudu ka faa'iidaysteen siyaasad bannaanida ka jirtay dalka, iyagoo magacaabay dowladooda ay ula baxeen Israa'iil. arrinkaa waxaa ka xanaaqay carab oo dhan si guud, reer Filistiinna si gaar ah. waxaa weerar ku soo qaaday dowlad kusheegay Urdunka ahayd, ciidamo ka soo jeeda dalka Urdun iyo jabhado ay aasaaseen dadka reer Filistiin. dagaalka waxaa khasaare laga soo gaarsiiyey Yuhuudda, iyadoo ay qaar ka dhinteen kuwana laga qafashay. natiijadii ka dhalatay dagaalkaas waxay Qudus u qaybsantay 2 qaybood: daanta galbeed oo hoos tagta dowlad kusheegga Israa'iil, iyo daanta bari oo ay gacanta ku hayaan xooggii Carbeed iyo reer Filistiin. waxaa mar labaad dagaalamay Carabta iyo Israa'iil sanaddu markay ahayd 1960. markan waxaa dagaalka soo wada galay Masar iyo Urdun. waxay dagaalkaa ula baxeen nagsata xasiiraan, af Soomaali ahaanna dibdhaci Juun, halka Yuhuudda u taqaano dagaalkii 6 maalmood. waxaa dagaalkaas u gacan sarreeyay Yuhuudda, waxayna gacanta ku dhigtay magaaladii barakaysnayd ee Qudus. waxay socotaba waxay Yuhuuddu baabi'iyeen oo dulmi kula kaceen tuulooyin yaryar oo dhici jiray galbeedka Qudus. waxaa ka mid ah tuulooyinkaas Maalixa, Diir Yaasiin, Cayn Karam, Lafta, Qustud. waxayna ku beddesheen kuwa ay dhisteen magacdana ula baxeen. waxaa ka mid ah Kafcatu Shaawul, Beyt, Hirtiisal, Kiryat Yafiil, Yaamiin Moshiya, Rabxaamiya iyo kuwo kale oo ka magacyo xun. cajiib. magaalada Qudus waxaa laga dhaqmaa diimo kala duwan sida diinta Muslimka ah, Masiixiyada iyo diinta Yuhuudda. tirkoob la sameeyey sanaddu markay ahayd 2000, waxaa la sheegay inay ku yaalaan ku dhowaad 300 iyo dheeraad kaniisadood oo ay kala leeyihiin Yuhuudda iyo Kiristaanku. xagga muslimiintana 73 masjid baa ku yaala. رسالتنا ورسالتنا اليوم بسالة راية ثورتنا وإن متنا فيها سترون. haddaba ka muslimiin ahaan, Qudus waa maxay ahmiyadda ay noogu fadhidaa ama ay noo leedahay? Qudus waa meesha saddexaad ee ugu qiimaha badan muslimiinta marka laga reebo Maka iyo Madiina, waxayna ahayd qiblada salaada Islaamka muddo sanad ku dhow ka hor intaan qiblada loo weecin Kacbada Maka. Qudus
waxay noqotay magaalo muhiimad diineed u leh muslimiinta kadib markii Maliku Jibriil u dheelmiyey Nebi Maxamed sanadkii 620 miilaadiga, halkaas oo Nebigu ku tujiyey dhammaan nebiyadii iyo rasuuladii ka horeeyey. waxaan taariikhda dheer uga soo sheekeeyey si aynu u fahanno colaadan hadda alaasan xaggay salka ku haysaa. ololaha ka socda ee gelgeliyey baraha bulshada markaas social media furtana kaasoo horbaxaya sidoo kale dadka saamaynta baraha bulshada ku leh ee doonaya inay ku soo jeediyaan gumaysiga iyo dulmiga ay Yahuuddu ku hayaan Filistiin. muxuu salka ku hayaa? boodada reer Maraykan iyo ku dhawaaqidda xabad joojinta, sidoo kale duqeynta Qassam, dhaarta madaxweynaha dalka Turkiga, mudaharaadka aan kaljoogsiga lahayn, maxaa sababay? shucuurta intaa leegna maxaa kiciyey? mar haddaynu soo fahanay aasaaska dowlad ku sheega Israa'iil iyo muhiimadda Quds ay ku fadhido ka muslimiin ahaan, si la mid ah waa inaynu isdultaag ku samaynaa xaafad la yidhaahdo Sheekh Jarraax oo ku taalla Qudus. waxaynu soo sheegnay inay Urdun hoos imaan jirtay qaybtii bari ee magaalada Qudus. waxaa dhacday in qoysas badan oo Filistiiniyiin ah ay ka barakacaan deegaamadoodii ay ka degnaayeen Filistiin iyagoo aaday dalka ay daris wadaagga yihiin ee Urdun. waxay Urdun iyo hay-ad hoos tagtay qaramada midoobay iska kaashadeen in dib u dejin lagu sameeyo barakacayaashaas, guryoon looga dhiso xaafadda Sheekh Jarraax. xilligaasi magaalada Qudus ma ahayn mid gacanta u gashay gumaystaha Israa'iil. dadka iyo magaaladuba waxay ahaayeen kuwo nabdoon ka hor intaan la gaadhin sanadkii 1960 oo aynu ka soo hadalnay dagaalkii dhex maray Carab iyo Israa'iil iyo in ay Yahuud ku gacan sarraysay dagaalkaas lana wareegtay magaaladii barakaysnayd. waxay bilowday inay ka dhisto 20 guri oo cusub xaafadda Sheekh Jarraax. marka guryahaas la dhisayo waxaa intaa in leeg la dumiyey guryihii Filistiiniyiinta ay ku yaalay xaafaddaas. kadib waxaa soo baxay hay-ado u doodaya inay Yahuud lahaayeen deegaamadaas wixii ka horeeyey sanadkii 1885. waxa ayna dalbadeen maxkamad si looga saaro dadka reer Filistiin guryaha ay ku lahaayeen deegaankaas. waxay dacwadu soo jeedintaba waxaa usbuucyo ka hor la furay maxkamaddii, waxaana go'aan lagu soo saaray inay Yahuudda xaq u leeyihiin dhulkaas lagana saaro reerihii degnaa xaafadahaas. la yaab ma leh oo waayo waxay ahayd maxkamad u gaar ah gaal iyo gaala raac. barakicintaas iyo in xaafadahooda laga saaro lagama tegin. waxaa la faray inay bixiyaan mugdhow gaaraya $22,515. waxa uu arkaya qof kastoo muslim ahi, sidoo kale ay arkayaan dadka degan Qudus iyo hareeraheeda in ay tahay barakicintan iyo guri ku-qabsashadani bilow iyo albaab uu ku doonayo gumaystuhu inuu kula wareego dhammaan guryaha ku ag hareeraysan magaalada barakaysan ee Qudus si ay isugu gaar yeelaan. maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in ay tahay caasimadooda, laakiin baroorta orgeeda ka weyn oo haddii laga aamuso inay Yahuudu qabsato guryahan waxaa beri fududaanaysa inay la wareegto dhammaan guryaha kale. taasi waxay ahayd qayb ka mid ah meesha dabka colaaddu ka hurtay si uu xabaansiin ku sii daray isku soo beeganka dabaaldega gumaystaha Israa'iil la wareegidda guryahaas iyo bisha Ramadaan. maxaa yeelay Filistiiniinta halkaa degani waxay yidhaahdaan masjidka ku tukadaan taraawiixda iyo dhammaan salaadaha kale. taasina waxay caqabad ku noqonaysaa dabaaldega gumaystaha oo ay u xisaabsan tahay 10 bisha shanaad inay tahay maalinta ay la wareegeen Qudus. sidaa awgeed waxay maalintaas samaystaan xaflado iyo damaashaadyo. waxay aaminsan yihiin inay mamnuuc tahay maalintaas in lagu arko qof aan Yahuudi ahayn masjidka dhexdiisa. arrintan oo keentay inay dhacaan iska hor yimaadyo dhex mara gumaystaha iyo Filistiiniyiinta sanad walba. ma jiro madaxweyne Carbeed ama muslim oo ka hadlay qadiyaddan marka laga reebo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo dhaliilay falka ay Yahuuddu sameeyeen kuna tilmaamay inuu yahay fal argagixisnimo. waxaynu wada sugaynay in dalalka Islaamku ay sameeyaan ficillinta ka weyn iyagoo cadad iyo cudurba ka awood badan Yahuudda. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur.